ciyaartoyda xulka qaranka Brazil ee Richarlison iyo Vinicius Junior ayaa la kala qabtay kadib markii ay isdharbaaxyeen intii ay ku jireen tababar. Labadan ciyaaryahan ayaa la arkay iyagoo isqabqabsanaya funaanadaha oo uu muran soo kala dhexgalay Sabtidii. Neymar iyo Dani Alves ayaa si degdeg ah u kala dhexgalay oo qaboojiyay khilaafka, mana cadda waxa dhaliyay dhacdadan. Brazil ayaa ka mid ah xulalka ugu cadcad ee sanadkan ku guuleysan doona koobka adduunka ee ka dhacaya dalka Qatar, waxayna isku diyaarinayaan tartanka iyaga oo bishan kulamo saaxiibtinimo ku ciyaaraya qaaradda Aasiya. Waxa ay 5-1 ku qaraaceen South Korea Khamiistii, iyadoo Richarlison uu dhaliyay goolka koowaad daqiiqadii 7 halka daqiiqadii 42 iyo 57 uu dhaliyay Neymar. Daqiiqadii 80 waxaa dhaliyay Philippe Coutinho, daqiiqadii 93 waxaa ku soo qatimay Gabriel Jesus, waxayna Isniinta la ciyaari doonaan Japan. Khilaafka labada ciyaaryahan ayaa imaanaya maalmo uun kadib markii Richarlison laga duubay muuqaal isagoo ugu hambalyeynaya Vinicius guuleysiga Champions League. Laacibka reer Brazil ayaa goolka guusha u dhaliyay Real Madrid ciyaartii 1-0 kaga adkaadeen Liverpool bishii hore. Xidiga Everton Richarlison ayaa xitaa guushan ugu dabaaldegay baraha bulshada. Richarlison ayaa sidoo kale ugu hambalyeeyay Vinicius Instagram-ka kadib markii uu 2 gool ka dhaliyay Liverpool wareegii 8 Champions League xilli ciyaareedkii hore. Ma cadda in labadooda ay saaxiibo yihiin iyo in kale haddii ay isku dhacaanna ay tahay wax laga walwalay ka hor koobka adduunka. Halyeyga reer Brazil Ronaldo ayaa kasoo kici timay magaalada Valladolid ee dalka Spain isaga oo ku sii jeeday Santiago de Compostela isaga oo ku adkeysanaya balantii uu qaaday ka hor inta ayna kooxdiisu u soo gudbin horyaalka La Liga. Weeraryahankii hore ee Real Madrid iyo Inter Milan ayaa iibsaday 51% saamiga kooxda dhawaan soo dalacday ee Real Valladolid sanadkii 2018 wuxuuna ka dhabeeyay ballanqaadkii uu sameeyay markii kooxdu ay ka hartay horyaalka Spain dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore. Waxaan ballan qaaday in haddii aan ku soo laabano La Liga aan samayn doono Camino de Santiago oo ah dhaqan Kirishtaanka uu leeyahay oo uu qofku wadada ku lugeynayo ama baaskiil ku wadanayo isaga oo jaraya masaafo 500 oo mayl ah kuna qaadanayso 30 biri si dambigiisa loogu cafiyo, ayuu yiri 45 jirka reer Brazil. Ronaldo iyo xaaskiisa ayaa qorsheeyay in ay dhammaystiraan wadadii ay ku mari lahaayeen dhowr iyo 10 kiiloomitir maalin kasta ilaa ay ka gaaraan halkii ay u socdeen. Waxa ay safarka ka bilaabeen garoonka Valladolid ee Estadio José Zorrilla oo 500 kiiloomitir u jira Santiago de Compostela. Ronaldo waxa uu qirtay inuu ku faraxsan yahay inuu fuliyo balantii. Waxay noqon doontaa wax qurux badan, ayuu u sheegay warbaahinta Spain. Waan ogahay in aan jir ahaan u xanuunsan doono, laakiin waxay noqon doontaa waayo aragnimo lama ilaawaan ah. Ronaldo ayaa ciyaaraha ka fariistay sanadkii 2011 kadib waayihii ciyaareed ee cajiibka ahaa ee uu la soo qaatay kooxaha Real Madrid, Barcelona, Inter Milan iyo AC Milan, isagoo kula guuleystay hal horyaal oo La Liga ah, UEFA Cup iyo koobka ama Cup Winners' Cup. waxaan uu u saftay Brazil 98 ciyaar isagoo u dhaliyay 62 gool. waxaan uu soo qaatay 2 biladood oo uu ku guuleystay koobka adduunka 1994 iyo 2002. Ronaldo ayaa 1997 iyo 2002 ku guuleystay 2 abaalmarin oo Ballon d'Or ah, waxaana uu saami ku leeyahay kooxda reer Brazil ee Cruzeiro oo uu xirfadiisa ka bilaabay 1993.